munaasabadan ayaa ahayd mid ururka ardada reer Maakhir ee ku dhaqan wadanka Bangladesh waxna ka barta halkaasi ay ku soo bandhigayeen wajigii koowaad ee buugaag nooca cilmiga laga raacdo ah oo ay ugu deeqeen jaamacadda Maakhir oo ku taal magaalada Baran ee gobolka Sanaag. xubnaha ururka midowga ardada reer Maakhir ee ku nool wadanka Bangladesh waxna ka barta oo kala ah عثمان إبراهيم دعالة قدوميها أورور كاسي مصطفى سعيد نور قدوميه كحجانكا محمود جبريل حبين محمد حسن الجامعة فيانكا أورور كاسي سكرية حامد أو كترسن حبنها أورور كا حمزة إسماعيل ليبان ويسقنا حبنها كترسن محمد عبد الله دورشي قدوميه هراء أورور كمدوغا أرضيدا رير ماخير بنغلاديش إيا عبد الحكيم موسى حرسي أو كترسن حبنها أورور كاسي أيا كهدلي مناسبة دا سيلا قسا قوتيني بوغ أي أوغوتا لغالين جامعة ماخر مقالة بران قبل كالسناك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقاعي وعثمان إبراهيم دعالة أهنا قدوميها أوروركا دانيار ترير ماخر كودغان دالك بنغلاديش كاران عاصمة دكا. كلي waxaan xagan ku soo bandhigaynaa hadaan nahay jaaliyadii ama ururkii Maakhir ee ku dhaqnaa wadanka Bangladesh wax qabadkii ugu horeeyay kaasoo ah inaanu u dirno feeskii ugu horeeyay jaamacadda Maakhir ee gobolka Sanaag markaanu aragnay baahida loo baahan yahay buugaagta markaanu aragnay isbedelka ka socda gobolkii waxaanu jeclaysanay hadaan nahay aqoon-yahanadii gobolka inaanu anaguna kala qayb qaadano horumarka iyo wax qabadka kala qayb qaadano gobolkayga waxaanu jeclaysanay inaanu sii dhibno feeskii ugu horeeyay aanu sii dhibno jaamacadda salaamaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto si gaar waxaan u salaamayaa bahda qalinleyda Soomaaliyeed runtii waxaan isugu nimi xaflad yar oo kooban aan ku sagootinayno buugaagtaas ku wajahan gobolka Sanaag gaar ahaan jaamacadda Maakhir runtii waxaan soo bandhigaynaa dadaal in muddo ah soo socday ka yimi fikrad ka timi dhalinyaro aqoon-yahana oo ardayda wax ka barata wadanka Bangladesh gaar ahaan ardayda ururka Maakhir ee wadankan taasoo ah caawla joogo miro dhalkeedii la joogo inaan halka direeno buug aad u tiro badan buugtaas ka kooban dhowr department oo kala duwan runtii anagoo eegaynana sida ay u kala muhiimsan yihiin muhiimadda ugu weyn ee buugtan aan u direena ma ahan inaan leenahay waxaa jirta baahi weyn oo jaamacadii buug ka jirta laakiin waxa weeye waxaan leenahay buuggii la geeyaaba waxa uu soo kordhinaya waan ognahay jaamacaddu wax haystaa lab ku filan buugaag badan laakiin anaga waxaan isweydiinay idinkana kaalintiinu maxay noqon kartaa iyadoo la dareemayna arday la iska yahay xaaladda lagu jiro waaqica la dareemi karayo haddana waxaan siniyada saa tahay ha kaga hadhinina waxaan xasuustaa anu rag baan goobjoog u ahaa markii la dhisay jaamacadda oo dhagax iyo dhoobada la lahaa salaadiina loo diri jiray marka caawan waxaan taaganahay inaan kordhino aan muujino bal maxaan ku tari karnaa maxaan sii dhiibi karnaa runtii ma aha waxaan aan wadno shaqada aan wadno shaqo aad u weyn ma aha waa dareemaynaa qiimaha iyagu iyo waxa goynteedu inay aad u yar tahay laakiin waxaanu ahayn dad vision leh oo aragti leh oo inay wax bilaabaan rabay marka tani waxay noqonaysaa barbilow bay noqonaysaa waxaan ugu talagalay inaan ummadda tusno ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan mandaqada Sanaag inta ka soo jeeda in markasta oo ciid isu tagto walow ha ahaayeen 2 qof ama 3 qof inay wax qaban karaan waxaanu ka rajaynaynaa dhammaan ardayda reer Sanaag oo kala jooga daafaha caalamka inay si lamada iyo si ka badan inay sameyn doonaan إن شاء الله يدين كنا نقضة وحي الذين سودي بكوا ينكو أنفعه واحد بدنا كفاء إذا استرنتي وارون أو سيدا ولكن مصطفى وكسر هذا لي واختيار روي شدي أو حيالك قدر لسودي رجال لكن ما أنت وابوك يقلن كي بمرسى إن شاء الله حلقة يا صادم بأما ساكون بأما ديدتكو السياسيين بلايهن ضد العقلية بلايهن ضد ويارق بلايهن إن حتى معركة ضد تصالح النقطة أو أنت إنك بدن ليدين سو معركة ديبو أما ليدين بهالكيستو تاسو إجدو مسنا جامعة قدر ما أها جامعة ما تبا u qabtaa waxay arday qaadaya wax kale laakiin waa waxaanu isleenahay shalay dhagaxa iyo ciid baanu saareynay maanta meeshii aan dhagaxa iyo ciid saarnay wari bedelkeedii hadii dhagax iyo ciidii lagu guuleystay wax loo baahan yahay in ma garanaysaa wixii lagu dhigan lahaana aanu inta tamartayada ah insha Allah aanu ka qayb qaadano ilaahay baa mahad leh suukan keenay meesha tan mahad ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhalinyarada wajiyaasha quruxda badan leh ka soo qayb galay ee soo organize gareeyay arintan aanu caaw halka u joogno oo aynaanu sii dhiibno aan buugtaas aan u sii dhiibayno dalka Soomaaliya khaas ahaan Sanaag gaar ahaan magaalada Baran jaamacadda Maakhir University buugtaas oo ka kooban dhibaatooyin badan ururka Maakhir ee ka dhisan Bangladesh wax qabadkii koowaad oo mataqaana uu sii dhiibo weeye laakiin noqon maayo
waxqabadkii ugu dambeeyay noqon maayo waa fayskii koowaad waxaa jiri doonta waxyaabo badan oo kale aanu sii dhiibi karno aanu la wadaagi karno ummadda Soomaaliyeed iyo ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mandaqadii aan maanta wax ku soo baranay gaar ahaan anigu Xamse ah oo leegu bilaabay alif ba ta tha leegu bilaabay inaan maanta buugaag iyo aqoon inaan u sii gudbino aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii insha Allah buugaag kaliyana ma aha inaan soo dhiibnay waxaan rajaynaynaa insha Allah anagoo maanta aqoon yahana inaan mandaqada ku soo noqono oo aan muxuu ahaa aqoontan soo baranay inaan la wadaagno bulshada guddigan soo qaban qaabiyay ee ururka Maakhir Student Association aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inuu inta shaqooyin ka sii badiyo hadii ahaan lahaay mataaneynta jaamacadaha dalkan iyo Maakhir iyana inay ku daraan wax qabadkooda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya in dalkooda wax ku celiyaan oo ay xusuustaan iyo dadkii ay ka yimaadeen iyo deegaanka ay ka yimaadeen runtii caawa halkan waxaan iga muuqata juhdi fiican waxaad geliseen inaad wax weey lacag iska ururisaan idinku qurba jooga oo dhaxsataan jaamacadiinii dadkiinii iyo dalkiinina wax weey inii baahan yahay runtii inta ay ka badan ba insha Allah waan rajeenayaa inaad garab istaag aad u ahaataan jaamacadiina jaamacada cid kaliya ay sugayso waa idinka inta ay ka badan ba insha Allah wayna bogaadinaya inaad wax weeyaan sameysaan waxaan u maleynayaa waa feeskiinii ugu horeeyay inuusan noqon feeskiinii ugu dambeeyay midowga ururka ardada reer Maakhir ee ku dhaqan wadanka Bangladesh waxna ka barta halkaasi ayaa sheegay in buugaagtani ay tahay wajigii koowaad laakiin ay wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin ardada dhigata jaamacadda Maakhir oo ku taal magaalada Baran ee gobolka Sanaag Maxamed Xasan Dhalo warbaahinta Daljir